السلام عليكم أصحابي maanta muuqaal cusub haddana safilaya dhowrkii mar hal mar aan muuqaal idinkeena maahno taasna ay qabanna waa caadi maanta waxaa raba marka wixii xogo cusub oo jiray dhan in hal muuqaal idinkugu soo kabo inta daqiiqoona qaar ma sheegi karo laakiin waxaan doonayaa hal muuqaal inaan idinkugu soo wada ururiya dhammaan muuqaalada yani xogihii cusub ee maalmahan dhan lasoo dhaafay xogaha waxaa ku bilaabaynaa masalka daaha kaas yani oo hadda meel fiican marayo horta asalkiisa waxaaba lagu talagalay taxanaha inuu ahaado mid hal season ah maadaama xilliga xagaaga lasoo saarayo waxaa lagu talagalay baa isaga dambe inuu ahaado hal season keliya weliba xilli xagaagana waa ka kooban yihiin taxanooyinka waqtigaas soo baxaya waxaa lagu talagalay isaga dhan asal ahaan inuu 17 xalqa adhiya inuu ku dhammaado balse maadaama la arkay taxanaha inuu saad u karar qaatay oo saad u kacay waxaa hadda la qorsheenayaa in season 2 loo sameeyo ilaa hadda lama shaacinin cid sheegtana male in season loo sameeyo doono balse sheekada maadaama ay aad u fadhiisatay taageerayaal badan oo yeeshay taxanaha kulli hadda shirkadda dib ay isugu noqon doontaa inay season 2 u samaynayso in gebi ahaanba ay 17 ku jooji doonto taas ayada ayaan ka sugaynaa laakiin weli go'aan sax ah ma aysan gaarin shirkadda laakiin markii ay soo gaarto go'aan sax ah in taxanaha la jooji doono oo season 1 ku dhammaanayo in season 2 oo yeelan doono taas oo inta badan hadda loo badinaya inay macquul tahay inuu season 2 yeeshto marka waxaan ka sugi doonaa dhanka shirkadda ayada ayaan ka war sugaynaa waa ila faateen aan umaleynaya in taxanahaasi yani kow ahaan asal ahaan loogu talagalay in 17 qayb uu noqdo balse hadda dib laga bedelay oo laga dhigay yani in hadda furmi karo oo seasonka loo yeeli karo in la joojinayo waxaas kale yani ku shaqale shirkadda laakiin hadda inta badan waxaa la saadaalinaya waa in season 2 oo yeelan karo ayna macquul tahay inuu yeeshto haddii sidan ratingka isu sii socdo telefishinada sidaa loogu soo dhaweeyey mar walba sidoo kale xogaha ugu muhiimsan ee ka jira waxaa la sheegaya in Layla maalmahan hadda xalqadii ugu dambeysay oo kale la sheegay yani qaabkii dabka gubad oo kale yani dabka markii guriga ku jirto qaabka gubanayay Tioma ka dambeeyay hadda se la sheegaya yani si ay ka dhigayeen dabkaas Tioma kicii marka hadda waxaa la sheegaya inkastoo xalqadii ugu horeeyay dhan baa nolosha Layla aan la soo hadal qaadaynin iyo sida ay ku imaatay yani xaaladaheedii hore maadaama uu aras ku mashquulsanaa walaalkiisa raadinta walaalkiisa marka hadda xogo maalmahan waxaa soo bixi doona xogo ku saabsan Layla nolosheedii hore sidoo kale waxaa la sheegayaaba in la filayo in aysan noqonin Shabnam gabadh ay dhashay Layla yani waxaa dhalay Layla Hakan balse xaaskiisii hore ayaa u dhashay oo Shabnam hooyo uma aha Layla sida la filayna warkaasna waa uu jira oo ilaa hadda waa la dhex wareegayaa faraha bulshadana wuu dhex wareegayaa wuxuu ahay hadda anina waa idinka dabageeyey kulligii laakiin waxaa la sheegaya in Shabnam aysan dhalin Layla Tiomna ayada ma dhalin Laylana ayada ma dhalin ayada cunugeeda waxaa umaleynaya inuu dhintay yani markay isbitaalka ku jirta cunuga dhinta bedelkiisa waxay gelisay Soomaali la sheegaynin soo maaha yani in Tiom oo galay bedelkiisa cunugaas marka saas ay ka wadaan laakiin sida la sheegayo Shabnam ma aysan dhalin Layla Layla waxaa dhashay Hakan xaaskiisii hore sidoo kale waxay sharxi doontaa sababta ay Shabnam Layla iyo Tiom si kala duwan ay ugu kala dhaqanto sidoo kale asxaabay xogaha kale waxay sheegaan in Matiin doorkaasi qofkii yaqaana mise jaraktarkaasi Matiin oo aras saaxiibkiisa mar walban garabkiisa taagan in uu noqon doono qaa'in weyn kaas oo hadda yani dabagal ku jiray bilowgiiba markii aras oo soo muuqdayba isla markii asna kusoo biiray taxanaha taas oo hadda cadaynaysa yani mise ay sheegayaan meelaha qaar in ninkaasi uu kow sarxad u shaqaynayaba yani uu dabagal ku hayay mise uu kaas la shaqaynaya laakiin ninkani dabagal ku hayay yani si talaabo oo ula socdo sidoo kale waxaa la sheegayaa markii sarxad gacanta lagu dhigay isla markaana uu Hakan wareegsaday oona hadda marka Hakan jaajus yahay oo la shaqeeyo xitaa boorsadii aras markii la waayay qafka qaaday iyo meeshii laga waayay cid heshay ma jirto gudahana ma uusan soo galin Hakan inkastoo gacmihiisa dhadheer yihiin haddana waxaa la sheegaya yani in asiga uu ka dambeeyey mana jirto sabab gaar ah uu maaragtay aras oo u beegsanayo Matiin laakiin waxaa laga yaabaa in ay tahay keliya lacag dhanka jaabka ayaa loo buuxiyey sidaas awgeed ayuu ugu shaqeeyaa marka Hakan maahane howlaad cusub oo labadooda dhex taalo ilaa hadda lama sheegin laakiin waxaa la sheegaya in yani Matiin uu yahay qaa'in weyn adiga say kula tahay doorkaas ma ka shaksaneed base waxaa islahayd ninkani qaa'in maaha oo mar walba wuxuu ahay saaxiibka u dhaway aras xogihii taxanaha daaha mise wuxuu ahay 17 jir halkaas ayaan kaga bixina labada xog ugu muhiimsanaduna in Matiin uu yahay qaa'in taas ilaa hadda ma hubaani laakiin sida xogaha sheegayaan waay iyo in Layla aysan ahayn gabadha Shabnam adiga labadaas xog maxaa kaaga baxay mana isleedahay arrintaas waxbaa ka jiro sidoo kale haddana xogaha kale ku xiji karna musalsalka waxay noo noqonayaa musalsalka aad u xiisaha badan akshanka iyo ficilka iyo maaragtay saaxiibtinimadana ay aadka ugu sareyso ee ah taxanaha Alto Istanbul kaas oo hadda yani sheekadiis aad u sii socoto yani midkan daha hataa inuu yani ka saameyn badan yahay u eg marka kaasna waxaa la sheegaya in yani xalqadaha maalmahan yani jecel ee ka dhex socotay sida Amir iyo Nas iyo sidoo kale Ozai iyo Malik marka hadda waxaa la sheegaya in wuxuu ahay
labada xiriirada marka saas looga soo baxo yani qaybtan sagaalaad oo dhici doona weerar weyn yani dagaalo maadaama wuxuu ahaa jecelkii yani hadda waxa la fahmay marka waxay rabaa in tacnihii ay ka dhigaan ay usoo jeestaan actionka xogo maaragtay jecelka ee dhinac iska dhigaan marka actionka hadda ayaa diiradda la saaraya oo qeybaha soo socda waxaa ku arki doontaan actionmo maaragtay aad ka naxi doontaan aadna u bogi doontaan oo maaragtay action backgroundkiisa wata ficilkiisa wata iyo maaragtay emir oo xarakaya doona laakiin arrintaas waxaa jirta arrimo ka weyn actionka iyo xarakadan sidoo kale waxaa jira doorka bahtiyaar ee ahay emir walaalkiisa ka weynay yani midkii aad taqaaniin oo jilayay bahalka iyo bani la taqaani tacanaas kii ku jiray haddaba kan jilaya wuxuu ahay bahtiyaar ee emir walaalkiisa kii ka weynay xoogoona dhimirka la-ay yani duqdan ee aad u nacbeed iyo aabihiisaba waxaa yani la sheegaya xoogo cusub maadaama yani doorkaasi uu ahay door aad ugu tiirsanay emir hadda waxaa ka cusub xoogo cusub xoogaha warbaahinta laga helo siday sheegayaan waxaa la sheegaya doorkaasi bahtiyaar in uusan taxanaha ka bixin sidoo kale waxaa la sheegaya in taxanaha uu dib ugu soo noqon doonaba weliba xil ciyaareedka dhamaadkiisa oo hal mar silama filaan ugu soo muuqan doono weliba xaafadda dib ugu soo laaman doono xaafadda siyankara ayuu mar kale dib ugu soo laaman doonaa bahtiyaar weliba isagoo ah markii aad taqaani ahayn dadka qaar waxay u arkaan midaas inaysan macquul ahayn dadka qaarna sidoo kale waxay u arkaan inay macquul tahay arrintaasi sidoo kale xataa waxaa la sheegaya oo loo sii daliishanaya in weli shirkadda NTG media yani aysan ka bixin heshiiska mase weli jilayaasha taxanaha uu kamid yahay aktarkaasi mase doorka jilaya ee bahtiyaar magaciisa saxda waa Seser Anijay inkastoo anaga ah hadda bahtiyaar u naqaano bahtiyaarka noo fudud mase Seser iska dhahna wax walba waxaa maaragtay macquulgal ka dhigi karo dadka qaar macquulgal u dhaheen waxaa waaye directorka iska leh yani mise directorka sameynayo oo yagtaa Tron la dhahay kaas oo hore u sameeyey taxanaha tusliyaaka markay daawataa fahmi kara marka dadka qaar waxay macquulgal waa u dhaheen maadaama ninkaas yaqaaneen tusliyaakana waa asiga gacantiisa ku sameeyey rogmad noocaas oo kale mise lama filan noocaas oo kalena daawadayaasha uga naxsaday markalkan nama gaadaysa taagiinoo macquulgal waa intaasna samayso hay asxaabi adika maxay idinla tahay yani haddii oo doorkaasi bahtiyaar weli u nool yahay ma qorshaha maxaa ka dambeeya aabihiisa maxaa ka dambeeya ninkii kale oo gangistarka ahay maxuu ahay see wax u jiraan adig yaa kaga shakisan tahay in ay macquulgal noqon karto mise duqda xitaa dhaaday yaa kaga shakisan tahay inay macquulgal noqon karto in wilkaasi uu qarinooyo uuna nool yahay weli mise waxaa dhihi kartaa imtixaanaha si lama filaan ayay ku dhici doontaa ani qiyaastiina dhiibtaba ani haddii aa qiyaaso waxay irtahay kuley wiilka aabihiisa iyo wuxuu ahay midka gangistarka loo mid un inuu gacantiisa ku jiro marka adi see idinla tahay yani ninkaas hadda soo imtixaanaha ugu soo noqon karaa intuu joogaa waqti xadarka intuu ku sugnaa karaa yani waxyaabasoo kale hadaad isweydiinayso baldhanka komitiga inuu wadaaga digan laakiin la socda weli xaqiiqa sax ma jirtaya oo rasmi ah weli la sheegay laakiin daabadayaasha inta badan waxay sugayaan in go-aan sax ay soo saarto tvga iska leh taxanahani sidoo kale xogtii ugu dambeysa hadda idinla wadaagaya waxaa waa in osg trore ay samay doonto taxano cusub kaas oo aad u xiiso badan ayadana yani ay ku jiri doonto door lagu magacaabo fikriyey waxaana hadda wadahadal lagula jiraa ninkii caanka ku naqday taxanihii dhakhtarkii mucjisada ee farmaan doorkiisa ahay ninkii doorkaasi qofkii yaqaana komitiga lagu wadaagi karaa magaciisa unur in lahaa jeclahay marka ninkaas ayaa waxaa wadahadal lagula jiraa in shaashada uu kula qaybsan doono mise kula wadaagi doono jeceyl ahaan mise xiriir ahaan iska dhilamaano osg trore iyo asiga hadda wadahadal noocaas ayaa la wadaa sheekada taxanaha waxaa yani waxay tahay in fikri tuuladeeda ka dhumatay maadaama la rabay dil sharafeed oo kale in lagu sameeyo familkeedana waxay aamineen inay gabadhooda dhimatay maadaama ay yani qaab inay dhimato kale ay uga soo badbaaday marka sanado badan kadib ayay dib ugu noqonaysaa dowladda ay ku noqotay laakiin ayadoo magac kale wadato markaana xil ilaaliye inay tahay rajeynaya doorkay ku jilayso oo fikriye ah laakiin magaceeda saxda fikriye marka inay ku jilaa kaas miya mise mid kale waa arki doonaa laakiin ayadoo magac kale wadato ayay tagi doontaa dowladda si ay dib ugu fiiriso mise ay u ogaato xaaladii adag inay yani wili mar kale jiraan iyo kale mise caadgoosio kalena ugu laabato marka waa arki doonaa asxaabay halkaas ayaan kusoo gabagabeynayna muuqaalkeena maanta wixii xogo cusubna haddii ay soo baxaan waa jiri doonaan xogo cusub wixii musale ee soo bixi doona September iyo Agosto dhexdooda wixii dhammaan musale ahay ee jiray ayaa hal muuqaal idinku soo koobi doonaa inta mid walba xilliga oo soo baxay taariikhda lasoo dii doono ayaa hal mar muuqaal idinkaga soo sameyn doonaa waxaana ku doonaa muuqaalka kan ku xigo marka insha Allah intaa ka kulmeen muuqaalka xiga midkaan laakiin noo sii saara asxaabe siina sheer gareeya asxaabteena noo sii dira dadka jecel inay ogaadaan aflaamta turkiga iyo waxyaabaha ka cusub marka waxaa idin sheegaya janaalkan waa janaalkiina shoon soo dhahda hadhay subscribe soo dhahda telegram kama joogni markaa sidaas nabadgelyo intaa ka kulmeen muuqaalka xiga